رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa maanta inaan naftayda iyo naftiinaba laba xadiis ama saddex xadiis iyo hal aayad ama laba aayadood inaynu isku sheegno oo Allah subxaanahu wa tacaala maadaama uu inaga dhigay dad muslimiina bishii fadliga wadnayna aynu ku jirno inta aynu kusoo jirnay xisaabtan adduun iyo xisaabtan magaranaysaa ehelnimo iyo xisaabtan kale aynu kusoo jirnay inaynu galno xisaabtanka aakhiro iyo inaynu isxasuusino nafteena iyo naftiina baan xasuusiyo Allah subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa iyo kalaamka rasuulka calayhi salaatu wassalaam. leanna maxaa yeelay alla tadmaina alquluub bidikri illahi ilaahi subxaanahu wa tacaala. dikriga ilaahay miyaanu qalbiyada ku degaynin, balaa waa ku degayaa weeye. sidoo markaa qalbiyada ugu degayana inaan qulubteenna aynu mar walba xasuusino oo ku soo ceshano ayaa wanaagsan. Allah subxaanahu wa tacaala shuruuciyada ama ummadan xukunka uu kor ka saaray waxaa ka mid ah uu ku waajibiyey waxaa ka mid ah islaamnimada marka laga hadlayo siduu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam. xadiis uu warinayo ibn Cabbaas radiyallahu canhu ana nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal liwaafid al-abd al-qays أمركم بأربعة: الإيمان بالله وأهل تدرون بالإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من النعم الخمسة من الغنم الخمسة. labada sifo oo ku timid. xadiis kale uu warinayo Abu Hurayra radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay: man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bukhari iyo Muslim bay warinayaan. xadiiska hore ibn Cabbaasna Bukhari iyo Muslim ayaa labadaba warinaya iyo qeyrkoodaba. wuxuu rasuulku markaa ku jiro meeshaas aynu ka faa'iideysanaa ama maxal shaahidka aan ugu soconaa waxa weeye shahaadatu an laa ilaaha illallah. markaad intaad la timaado waxaa kugu xigta salaada inaad la timaado, sakadii inaad bixiso. intaas markay waajib ku noqoto la timaado ay ku fusho, waxa kuu soo raacaya ee la rabaa inaad fuliso waxa weeyaan waa soomka. waa bisha Ramadaan hadda aan ku jirno, shahru Ramadaan alladii unsila fiihi alqur'aan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa isla bishan weeyaan laftigeeda ayaa markaa la rabaa in waajibkeedii iyo umuuraheedii ay siday tahay loo gudo markaa. leanna maxaa yeelay haddii bishaan qur-aanka la soo dejiyey maxaa bilaha kale ay kaga duwan tahay? waxay bilaha kale kaga duwan tahay ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun buu ilaah leeyahay. dadka iimaanka dhabtaa laga helayow, ehli iimaanow, intii ilaahay rumaysay rasuulkiisa raacday calayhi salaatu wassalaam, waxaa dushiina faral la idinka dhigay iyo idinka iyo kuwii idinka horreeyeyba inaad soontaan bisha Ramadaan inaad soontaan. oo soonkaasi waa soonkee? maxaase laga soomayaa? waxaa laga soomayaa waxa weeyaan sidoo ibn Jawzi uu leeyahay raximahullahu tacaala waa
لما كان المقصود من الصيام وحبس النفس عن الشهوات ونفط أو لغا حبسه أو لغا حرحره وحلا وحي شهوات كها هذا الكيف حماية كو هذيسي كفتك حماية توريسي علاشي نيد قلبي حمانيسي أما حقدي حسن مقلنيسي وحويا ولا حريا وحلا حريا وحي نفتو جعليسانيسي على إلهي رسول كريستونا عن رالك أحين مقرانسا هذا اللغوي هالنقضه أما عرقتي اللغوي هالنقضه أما دقيسي اللغوي هالنقضه أنت ونفته ولا حريا وحكا نفته لغا حريا ربدي يا حنتي يا بلايدي رسول حديث كله عليه الصلاة والسلام إلهي دنك ملها إن أذ كتكتان عنتدين يبيهن أذ كتكتان إلهي دنك ملها ورسول عليه الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى يجربيه على حسب قدر إيمانكم إيمانك إن إلهي يجربيه إيمانك إلهي يجربيه أنا ومحي وحكس أي نفتو أي مارتي بيه قبوبة وتكتكتي عنتدي بعد كتكتي واحد كتكتي شاها ينعوض هذه كلا واحد استعمالي كتكتي غيركاagii baad ka dheeraatay inta markaad samaysay ayaadana maxaad ku ugu jirtaa inaad umad xamato inaad umad caydo inaad been sheegto inaad wax dhacdo inaad maartay waxaad disho inaad maartay aad umad aan namaam kala dhex noqoto war kala sheegto waxa soo dhan baad ayaad ku shaqaysanaysaa ama aad ku hadlaysaa ama umad la dhex socotaa saal ajrigeed buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam maadaama inta aad ku dhaqmayso waxa intaad iska tagtay iyo intaad ku dhaqmayso intaad ka tagtay ayaa yar ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam intaad ka tagtay ayaa yar buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka waxa loo baahan yahay inaad magaranaysaa aad iska tagto shay kasta ama arin kasta oo magaranaysaa soonkaaga dhaawacaysa Allah bisha Ramadaanna dambi kabaa'ir ku soo jeedaysa maxaa kale oo rabnaa inaan ka faa'iideysano aayadan quraanka marka ay leedahay yaa ayyuhalladina aamanu waxay marxaati ka haday cid kasto Ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaankooda u sugay mar haddii iimaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu sugay aad marxaati ka noqotayna wixii waajib kugu noqday sidii sakadii iyo salaadii iyo sadaqadii ay waajib kugu ahayd ay soomkana oo waajib kugu yahay sidaas waajibku mar haddii la inooga dhigay inaan waajibkiisa ka soo baxno weeye maxay bilaha kale ka fadli badantahay waxay bilaha kale ka fadli badantahay waa bisha kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dajiyay quraankiisa culimada intooda badanna waxay tilmaamaan afarta diimoodba inay soo degeen bir Ramadaan xadiis saxiixana way sheegayaan waxay leeyihiin نبي الله إبراهيم النبي ديمه يردن وسود الدقي توراة إنجيل فرقان زبور waxay soo degeen midii waxay soo degtay tii ugu horeysay bishii diinta ugu horeysay ee Nabi Ibrahim alayhi salaam waxay soo degtay markii muxuu ahaayay ay Ramadaan ay shan dhaaftay habeenkii lixaad bay soo degtay Ilaahay Muuse waxay soo degtay markay 13 ay tageen oo habeenkii 14aad bay soo degtay diinteena quraankaana waxay soo degtay 24 habeen markay tagtay habeenkii 25aad waa xaqii bacd culamaa u daliishadaan xadiiskaas markaad eegayso ay u daliishanayaan inay laylatul qadr wiil habeenka 25aad inuu yahay laakiin akthar culamaa wa asxaabtii waxay qabaan oo rasuulku xitaa xadiiska ku yiri waa guurguura oo habeen kaliya ma ahaado bishaas markaa fadligaas ay leedahay waxa ku jira habeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay laylatul qadr Ilaahay leeyna sallallahu fi laylatul qadr laylatul qadr khayru min alf shahr wa habeen oo Ilaahay leeyahay waxaan soo dejinay quraankan ama waxa ku jira bisha Ramadaanka waxa ku jira bil ama habeen baa ku jira habeenkaas oo soo degi doonaan kun malag ay soo degi doonaan habeenkaas oo waliba ka khayr badan يا كم بلاد بك خير بدنت كم بلاد أي كخير بدنت مرك علماء أي تريان وحرادان وأفري سيديتن يلح بلاد يدور يستين دور يو لبعتن هبين قارن وحران واشان يستيتن يو دوري لبعتن هبين وعمر جاجا إتأثرتوا كله إذا بتحفل دقيقة فائدة ولا مديح
waxa kale ay bishan bilaha kale ay dheerta waxa weeye mar haddii afartii diimoodba ay saa usoo degeen bisha ramadaanka ilaahay baa hadana inoo caddeeyay wuxuu leeyahay shahru ramadaan alladii unsila fiihi alqur'aan hudan linnaas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر الله حليه سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلهي وحا أسودة شيء أو إلهي بشان نحن أسودة شيء شهر رمضان قرآنك إلهي سودة شيء سبحانه وتعالى قرآنك الله سودة شيء أيها هدنا وحا لقول ليه قرآنكاس وحا لقوه عدينيا oo lagu bayaaminaya oo lagu kala saarsaaraya waxay tahay wax kala ma ahe waa inaad kala garato u fiirso markuu ilaahay wuxuu ka soo bilaabay aayadda ma garanaysaa ee 28aad ee suuratul baqara ilaahay leeyahay ya alladina aamanu kutiba alaykumus siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman macduudat wa ayyaama tirsan bu ilaahay subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladina dadkii ma ka dhabta laga helayo kutiba alaykum as-siyam waxa ilaahay ku kor yeelay ilaahay waajibidii ka dhigay idinka iyo kuwii idinka horeeyaba siyaamkii buu ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu idinka dhigay waajib ilaahay idinka dhigay idinka iyo kuwii idinka sii horeeyaba saad ilaahay uga cabsataan haddana waa in maartay soo soconaya ma habar guuri waa ayyaman macduudat weeyaan ayyaman macduudat faman kana minkum mariidan ayaamaha kooban 3 bariya ama 29 bariya ninka hadaba soo xaadira fariiso hortaan sooma hadaba ninkaas inta soo soomi waa ay hadduu soo xaadiro uu xanuunsan yahay aw calaa safarin ama uu yahay qof safar ku jira faciidatu min ayaamin ukhra ha u tirsado ayaamahan ka tegay oo ka xanuunsaday ama uu ka safray ha tirsado maalmo kale oo gurigiisa uu joogo ama uu caafimaad qabo ha ku buuxiyo weeye وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين كوي يضيقونه اسكو adkeynaya ama hawshaas isku martay xoojinaya fidyatun ay ku adag tahay aad iyo dhib ay ugu tahay way dadkii dhibka ku tahay arinkaasi marnaba aan laga yaabaynin inay ama ka xanuunka ay ka caafimaadaan ama dhibkaas iska haysanaya ay tahay oo aan soomi kareynin fidyatun طعام miskiin inay ay u qoodiyo miskiin ayaa u sugnaatay faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن إذا صنتان خير بيدين تاعي إلهي آياتك لك وحوتوحوا ليها شهر رمضان بشهر رمضان الذي بشي وي أنزل فيه القرآن الله سبحانه وتعالى القرآن هو سودتي هدى للناس سيدتك أو هانونسو أما يوهانونان مركي حمان ورك صومان دنبي ورا مركي كصومان توبت على مركي بديان دعاء إلهي مركي بديان وحصل مركي كصومان أو إلهي سبحانه وتعالى هنوك وعدينيا وبينات من الهدى هنوك ونكسو عدانيا والفرقان ونوك لساريا حمانتي ظلمي جهلي بوك لساريا فمن شهد منكم الشهر فليصم إدى إذا كمده عافيمان نكسو قاده مقيم نما كسو قاده يدو جورغيدي جوتن اي كسو غشو حصوم برسول ايو الله سبحانه وتعالى فليصم حصوم ومن كان مريضا قفك حنسنيا او على سفر اما سفر كجرنا فعيدة من ايام اخرى هترسدو ايام كره هو ترسدو ايامي كره سو غدو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مره بين الله يدكو عسريه مره ولتكملوا waxaad markaa aad buuxisaan al-iddata tiradii aad tirsanayseen oo ayaamihii ah oo ah 30 bari ama 29 bari walitukabbiru allaha ilaahayna inaad weynaysaan ala ma hadakum sida ilaahay subhanahu wa ta'ala idii hanuuniyay ilaahay idii toosiyay wala'allakum waxa laga yaabaa tashkuruuna inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala markaa aad u keentaan mahadnaq waana nimco ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiyay nimcooyinka ilaahayna ka mid ah ilaahayna wuxuu subhanahu wa ta'ala markuu nimcadiisa ka hadlayay haddii aad igu mahadnaqdaan nimcooyinka ilaahay siyaadada igu mahadnaqdaan buu ilaahay leeyahay waan idin siyaadinaya haddaad ii mahadnaq weydaanna idinku ma magaranaysaa nusqaanadiita marka ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii u mahadnaqa Allah inaga dhigo subhanahu wa ta'ala kuwii ilaahay subhanahu wa ta'ala garta Allah inaga dhigo bisha Ramadaan dambigooda iyo dunuubtooda kuwii ilaahay dhaafa Allah inaga dhigo inaga waalidkeenba
miisaanka xasanaadkaana ilaahay inoo wada saaro ajri xasanaad inkastoo wax kastanu shaqaysanaba wixii dembi aanu shaqaysanana ilaahay dembigeeda ha inaga cafiyo alla subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inaynu ilaahayna tuso ilaahay subxaanahu watacaala inaynu ahaano kuwa ahligiisa khaaskiisa inuu ilaahay naga dhigo insha allah biidna taala allah ina tuso waxaan insha allah biidnillahi tacaala waynu kasoo hadli doonaa haddii ilahay qadaro fadligeeda iyo fadaaisheeda iyo ciddii waajib ku tahay insha allah biidnillahi tacaala kolley hadday ciddii waajib ku tahay dadka muuminiinta oo dhan oo khaasa ayaa laga wada soo wada qaaday cidda ilaahay u khafiifiyeyna laba qodob baynu kasoo qaadanay marka insha allah wixii kale inoo dhimanna waynu sii xusi doonaa beritoole haddii ilaahay naftiina wada ilaahayna gaarsiiyo wixii aan hagaajiyeyna ilaahay rasuulkiisa ka sugnaadeen shay kastoon khaldayna naftayda iyo shaydaan bay ka sugnaatay wixii aan hagaajiyeyna miisaanka xasanaadka allah ina wada saaro intayna akhriyaysa intayna dhegaysanaysa wixii aan markaa aan hadlayeyna naftayda iyo shaydaan bay ka ahaatay ilaahay waxaan ka codsanayaa inuu ilaahay dembi dhaafi ilaahay iga dhigo oo ilaahay dembigay ku dhaafo oo ilaahay iga cafiyo oo ilaahay carabkayga iyo maaragtay caqligaygaba ilaahay ii saxo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu